السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا خيارت شرفت له ومركله iyo barnaamijkii Minas Health. maanta waxaan idin hayaa fitamiinada iyo noocyadooda iyo dhibaatada ay keeni karaan haddaad isticmaasho. Fitamiinada waa laba nooc. qaarna labada nooc waxaa la kala dhahaa water soluble iyo fat soluble. Water soluble waxaa laga wadaa markaad cabto jirkaaga inta u baahan ayuu ka qaataa, inta kalena kaadida ay raacaan. kan kale fat soluble kan waxa waaye markaad cabto jirkaagu ku jira xataa haddii uu jirkaagu u baahnayn weli jirkaagu uu ku jirayaa kama baxayo. marka kaasa ugu halis badan kan oo jirkaagu ku jiraya xataa haddaad u baahnayn jirkaaga kaydinaya, kaas ayaa aad danger u ah. waayo adigoo vitamiinkii u baahnayn haddii aad qaadato sun ayuu jirkaaga ku noqonayaa. especially waxa ugu daran haddii aad hooyo tahay ama ilmaha aad naaska siinaysid, ama haddii aad ur leedahay waxa laga yaabaa ilmahaas isagoo oo full ah inuu dhalanin oo isagoo ay maaragtay si fiican u korin inaad dhashaa laga yaabaa. especially vitaminadaas waxaa ka mid ah vitamin A, vitamin D, vitamin E iyo K. waa kuwa oo jirkaaga uu haynayo ama ku jirayo oo fat soluble la dhaho, ama haddii aad u baahan tahay haddii kaleba uu mar walba jirkaaga ku jiro aan ka baxaynin. waa A, D, E iyo K. vitaminadan kale ee markaad isticmaasho oo haddii aad maaragtay oo kugu badan yahay xataa inkastoo ay vitamiinka horta mar walbaba haddii aad vitamiin u baahan tahay ama aad isleedahay vitamiina kaa yar, please dhakhtarkaaga intaad aad balansato dhiigga laga soo qaado. haddii aad ogaato inuu vitamiinkaas uu kugu yar yahay oo dhakhtar kuu sheego vitamiinka noocaas kugu yar lagu dhaho, markaas waa u baahan tahay qaado. laakiin adoon u baahnayn ha iska qaadanin, dhibaatada markaas ay imaanaysaa. marka vitaminadan kale jirkaagu aan maaragtay haynaynin ama aan mar haddaad isticmaasho oo kale kasoo qaad waad isticmaashay, waxa laga yaabaa jirkaaga intuu rabo intuu ka qaato inta kalena musqusha kaaday raacaan. vitaminadaas noocaas waxaa ka mid ah vitamin C, vitamin B and adiga B complex waxa la isku dhaho. B12 ku jira, B1 ku jira, B9 adiga B complex. vitaminada oo B complex la dhaho way badan yihiin. kuwaas waa kuwa jirka markaad qaadato jirkaaga intuu u baahan yahay intay ka qaataan ay inta kalena musqushay raacaan. laakiin kuwa kale ee halista ah waa kuwa oo ay ka mid yahay vitamin A-ga, D-ga, E-ga iyo K-ga. kuwaas oo kale hadday kugu bataan mise adoon u baahnayn aad iska qaadato, intaad soo gadato aad iska qaadato, dhibaatooyin aad u fara badan ayay ku geysanayaan. especially vitamin A-ga. vitamin A-ga hooyada ur kale aad ayuu ugu daran yahay haddii ayna u baahnayn. haddii aad u baahan tahay oo dhakhtar kusoo qoro is okay, waayo dhakhtarka mar walba wuxuu la soconayaa caafimaadkaaga inta aad qaadan karto iyo inta aadan qaadan karin dhakhtarka unbaa ogaan kara. marka walaalayaal intaad meel tagtaan vitamiin ha iska soo gadanina ilaa aad deficiency aad leedahay oo dhakhtarka ku dhahay vitamiinka noocaasa kugu yar ee soo gado. adoon saas lagu dhihin ha iska soo gadanin. iskana ogow vitaminada jirkaaga oo ku haynayo, ama haddii aad qaadato hadduu vitamiinku kugu badan yahay xataa still wuu kugu haynaya. calciumka oo kale hadda vitamiinkan la dhaho calciumka haddii uu kugu bato halis aan la soo koobi karin ayuu leeyahay. way ka mid tahay inuu xididada maaragtay dhiigga intuu galo uu xiro. xataa calciumka wuxuu keenaa hadduu kugu bato stroke buu keeni karaa. marka waa waxyaabaha la iska dhowro vitamin calciumka. waad ogtiin calciumkana cuntada horta vitamin sidiisaba haddii aad cunto fiican oo caafimaad leh aad cunayso, wax walba waxaanu ka helnaa cuntada. vitaminadan oo dhan cuntada ku jiraan. haddii aad cunto healthy aad cunayso uma baahnid vitamin inaad farmashi tagto oo vitamin soo gadato uma baahnid. marka please ku dadaala inaad cunto fiican oo healthy aad cuntaan, waayo vitaminka kaliya waxaad u baahanaysaa haddii uu kaa yar yahay dhiig inta lagaa qaado lagu dhaho vitamiinkaas kaa yar oo dhakhtarku dhaho qaado, markaas qaado. laakiin intaad farmashi tagto vitamin iga yar aad dhahdo aad kaniin iska soo qaadato, please ha isticmaalin. halis weyn meeshaad isleedahay waxbuu kuu tarayaa laakiin waxbuu kuu dhimayaa. waayo vitaminada qaarkood waa sun
jirka sun ayay u yihiin, keliyahay sun u yihiin, beerkay sun u yihiin, wadnahay sun u yihiin, xididada dhiigga mara ayay sun u yihiin, ayay fariisan karaan. fitamiinada qaarkood saa idin sheegay calciumka oo kale ileen multivitamin haddii la dhaho hadda kasoo qaata multivitamin waxa waaye vitamin oo from A to Z ayaa ku jira, nooc kasta ku jira. marka iskama qaadan kartid haddii vitaminadaada oo ka yihiin, iskama qaadan kartid. waxaa laga yaabaa hal vitamin inuu kaa yaryahay sida ironka oo kale. hooyooyinka waxaa laga yaabaa iron inuu mar walba uu ka yaraado ama folic acid inuu ka yaraado, laakiin taas waa inuu dhakhtarka soo cadeeyaa. dhiigga marka lagaa qaado kadib aad soo ogaato, kadib waa isticmaali kartaa ilaan dhakhtarka kuu soo sheegay, waan ogtahay inuu kugu yaryahay. weliba adoo waqti gaaban qaadanaya oo haddana mar labaad is soo baaraya, haddii uu gaaro meeshii la rabayna iska jooji, waayo waxaan war uma haysid intuu kugu bato iyo dhibaato kale ku keeni karaa. marka programkeena maanta waxa waaye vitaminada iyo halistooda. please vitamin ha iska qaadanin ilaa uu dhakhtarku dhaho vitaminka noocaas ayaa kugu yar. vitaminado dhan ha iska qaadanin, kii kugu yar kaliya isticmaal. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. aad iyo aad u mahadsantihiin. waa iyo insha Allah next video. السلام عليكم.